hagaag bal hadda ayna waxaanu siin doonaa xagga dadweynaha wixii su'aalaha hadda la yiraahdo ay ku weydiin doonaan. ugu horeyn waxaan salaamayaa daadihiya barnaamijka Mubarak Cabdi Yuusuf iyo abwaanka barnaamijkan martida ku ah Aadan Tarabi. waxaan weydiin doonaa laba su'aalood sida uu abwaan Aadan Tarabi nooga warramay waxa lagu xidhay maanso kamida maansooyinkii uu ka tiriyay dhagax tuurka. waxaan jecelahay in maansada waqtigaasi taliska macaanka ahaa siyaad barra uu ku xidhay in uu nala wadaago oo uu noo tiriyo. su'aal kale ayaan u raacin lahaa lahaana wacad in ay waraabaha galeen oo ma garanaysaa uu maanso ka tiriyey ayuu noo sheegay. maansadaasi oo dhammaystiran iyada lafteeda inuu taanay nala wadaago waan jecelahay. hal su'aalo kale aan u raacinayaa waxaa su'aasha saddexaad aan u raacinayaana waxay tahay maadaama uu ka tirsan yahay bahda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka in uu si gaar ah inoogu dul istaago waa maxay dhaqanku ka abwaan ahaan in uu si qoto dheer inoogu faahfaahiyo oo uu arrintaasina sharaxaad dheeraad ah naga siiyo ayaan doonayaa. بسم الله الرحمن الرحيم فرحت بينو tahay inaan ka soo qayb galno munaasabadan umartidayna ugu yahay ama uu ka hadlayo abwaankeena weyn Aadan Tarabi daadiinayna Mubarak Cabdi Yuusuf waa barnaamij runtii qiimo leh dhaxal gal ah wax badan la inoo tari doona wana wacan tahay in suugaanyahanka halabuurkeena iyo dadkeena mudanta had iyo jeer laga muxuu hayay waraysto laga reebo dhaxal laga haro anigu waxaan doonayaa inaan laba su'aalood halabuurka weydiiyo. labada su'aalood ee aan weydiinayaa horta mid waxa weeyaan waxaan bal weydiin lahaa halabuurka maanta iyo halabuurkii waqtigaasi isagu ku hana qaaday bal farqiga u dhaxeeya iyo waxa ay ku kala duwan yihiin inuu in yar inoo iftiimiyo. su'aasha labaad ee aan weydiin lahaa waxa weeye iyaduna inaan laba heesood wax ka yar weydiiyo oo jeclaystay inaan wax ka ogaado. mid ahaani waxa weeyaan dar allaad u hurudaayo waxba dunida kama ogid. talabaadina waxa weeyaan heestii kale ahayd dhagar qabe abees iyo halaq lama dhunkado oo haweenka ka dhigan oo ninka dhinaca saaran ka ilayo dhiigay. waxaan horta tan waxa ay dhacdooyinka ay ku yimaadeen iyo waxa ay ku yimaadeen taa abaan ku xunoo sheegay dhagar qabo inay ku jirtay riwaayad. marka waxaan weydiin lahaa ma waxa ahayd mid riwaayad ahaan aad ku soo dartay si dhacdo adiga ku taabatay oo marka dumarka waxaad ka tabanaysay oo gaar ah ayaa jiray. su'aalahaas malada su'aalood ma weydiin lahaa. aad buu mahadsan yahay Ridwan runtii sida la idin sheegay dee waxaan malaynayaa wax badan bay inuu kordhinaysaa faa'iido badan la weynoo tahay. abwaanadeenii hore iyo raggii hal doorka uu ahaa markay noqoto suugaanta maxay ahayd Soomaalidu si u dhan tahayba kana soo maxay ka soo jeeda maxay dad iyaga qudhoodu suugaanta caan ku ahaan jiray. aadan waxaan doonayaa bal anagu waxaan malaynayaa muddaan wada joognay Cergaabo markii uu joogay uu ka shaqaynayay shaqaale dawladeed buu ka ahaa sidaan filayo dawladda hoose inuu shaqayn jiray baan u malaynayaa. inkastoo aan yaraa haddana waa sii xasuustaa. marka waxaan maqlay aniga qudhaydu oo xilligaa aan soo gaadhay heeso badan oo uu sameeyey Aadan in ay ku timid dhacdo Cergaabo ka dhacday oo gabadh ka mid ah gabdhihii gobolkaasna mid ka mid ah inuu caashaqay heesihii uu sameeyey gabadha qaar ka mid ah inuu wax iga sheego. talabaad riwaayadii maxay ahayd imika aad maxay ahayd carabka ku dhufatay ahayd muxuu ahaa qabrigii jacaylka maxaan leeyahay ii sheegeen xaasib la yaab leh balanqoda xabaalaha heesaheedii maxaa ka mid ahaa dadkii jilaysay maxay kala ahaayeen. labadaas su'aalood ma doonayaan ku weydiiyo aad baad mahadsantahay. samakaab baan horta ka horeyn doonaa ninkana isagu saddex su'aalood buu ku weydiiyay laba maansooyin bay ahaayeen oo waraabaha ah iyo dhagax tuurkii. tixda dhagax tuurkee laga markii hore dawladdu ay ka biyadiiday wixii aad ka hayso iyo tawaraabaha aad istiraahdeen oo aad imika inoo marisay yada dhagax tuurka wax ma ka haysaa
dhagaxtuurka waxaa la yidhahdaa ama meelaha ay aadka u dhimashada xaqi waa dhaqan wadani. waa dhaqan wadani. rays waxaa dhagax iyo madfaca la isdhaafsayo gidmay dhaawacay dhimashada xaqi waa dhaqan wadani. waa dhaqan wadani. waa maaso cadsig weyn oo ya soo dhagarqabiyeyn loo difoon hore wuxuu u dhimay midka weyn ma dhigin sax waxay ku qoran tahay buugga hangool. waxaa ku qoran tahay insha allah weliba si farshaxansan cajaa'iba marka waa dhimashada xaqi waa dhaqan wadani waa jirta arrintiisa. sax ta waraabaha waa adigana la wadaagay. si waraaba waa aniga dee idinla wadaagay idiin sheegay. su-aashii saddexaad ee uu samakaabku weydiiyey wuxuu yihi maadaama dhaqanka aada ugu xeel dheertay bal ereygan dhaqan muxuu yahay halkaa ka bilaabma. dhaqan waxa weeye horta markiisa hore waa dhalasho ya waa sida waxaad ku dhalatay waa waxaad ku dhalatay ee ku dhaqantay ee ku barbaartay hadda sida uu yahay wixii uu markaa aad ku dhalatay ee lagugu haday ee laguu koriyey hadda uu sida waxaan baa dhaqana caadooyinka absolute waayo waa dhaqan hooyaa kuu mushay diin bay kugu dhashay way ku habtay habar baa way ku habtay way ku korisay yani hadda noocay kugu dhashay gaal iyo islaam ma badnida waxay ahaydba nooca ay kugu dhashay ayaa dee dhaqanka ah iyo waxaad ku barbaartay ee ku kortay aad ya soomaalan wuxuu isagu ku weydiiyey laba heesood imka sheekadeena ku jiray oo mid waa darlaadu hurdaa waxba dunida kama ogdi ta dambena waxay ahayd riwaayadan bay ku jirtay koobaad oo dhagar qaba abees iyo ma sheeko waxay riwaayadda ku jirtay bay ahayd mise mid adiga kuu gaara horta heesta oo haweenkaa soo maray horta heesta ereyada waxaa lahaa ilaa markii jaamac cabdisheekh jaamacad sax waa ninkii heesaha badan lahaaye cabdi oo camar heestan qaatay ilaa in hore kuma bogsiisay hamigoor waa ninka heesaha lahaa sax marka heesta de isagu riwaayadda lagu kabay yani heestii isagu dahayo oo sameeyey ayay baar u eeg riwaayadii ay gelayso ayaa soo baxay midna waa lagu kabay sax way tan maxamed moogaad u dhiibtayna tan maxamed moogaan u dhiibay darlaadu hurdaa darlaadu hurdaa dee niyahow waxay ahayd dee beryaha aan meesha ka baxsaday aan xaggaayo dhulkii daan garanayay tegey ayaanu annagoo guuro ah maalintaana faqashta meesha noogu tiro oo aanu iska guurayno sidaa walaabahoo kale haddaad iminka duurgalow noqoto xoolaha waxaad ka urinaysaa sida inta bahalku ka uriyo sax annagoo iska soconayna yaanu habeed urinay waay waa adiga iyo waa aniga labadayda ila socday habeed baanu urinay haye baraf baa dhacaya haye de maanta rasaasna waanu ridayno si aanu nahayba dee garan mayno dabeetana waryaare meesha waa la yaaba habeed baa urayso waa wadnayo saaladii awrtaa baanu helay galabsi laga caraabiyey saanu haddana usii soconay yaanu xariyo iyo xoolo baanu urinay waanu socnaan orgiga qalaadkiisii maqal saasanu horta reerka ku helnay dabeedna dadkeenu dhaqan bay leeyihiin waxa weeyaan halkaa aqalku uga dhisan yahay halkaana ardaada u ah markaa aqalkii waa kaa ardaaga waa ka waa loo fadhiistaa sidaas oo dhan tusaalahaan dhaqan intay caweynayaan dabeedna reerkii baanu kusoo baxno ardaagaasaan fadhiisanay saan kuli waa reerkow gabar qudhaa joogta ninkii waa ka maqanya marti baanu nahay reerkow maya marka waa reerkow nidhi yaa gabadhii baxaysa dadka waktiga soconaya jin baan soonaysa
يعني dareen horta halka dareen xun baa ay galay waay kelmadda haa anna adigeeda iyo ninkeedii iyadaa soo xore in waxa dadka waqti socday ma shibaa ma soo horta halkaas ka balantay daran la dihu waxba dunida kama hada dunida kama dumar baa ka tahay dulbi taariikh mali heestaas sidaa ya ay ku soo baxday waay soo halkan kuma aadiya maxay sameysay marwadii Soomaaliyeed هذا دقيقة كل شيء دقيقة نقول واحد هذا شيء هويده ودكتور صح ودكتور عالمية وهاي سميسي بيجي مسيسي مركنا عمل شو علم بركنا وضعي أولي وهاي مسيسي برح في عريس وخايف أنا برح ها شلي دلي بقى نقول حلي دلي عادي بقى نقول واي waxay nasiisay hilbiyo qalaban wasalaya oo sooyaho ay tilisidiisa ku waxta ku ay dawarayaal baa noo socon karayna tufakay loo diidaysa marka hore ya صح dawladna shacbigeysana way noo kale waxa baan iska noqonayba dad wax kala ah tamar baa iyo tibqa tamar ya tamara way ka daltay way dawa tamarkii dambana muqmadda hilibka shiyan shaaha toban jeer marba wax nasiisay marba wax way marka waxay gabadhaas nagu baaratay waa kowdaho kal geel ku kal dambana ku ciidan صح ما شاء الله ha ما شاء الله marka waxay dhaqanka yaani dumarkeenu waa dhaqankay ka mid tahay hilibka yaryar aan waxba noqon muqmadda la yiraahdo ay ninkeeda kaydka ugu dhigto dhaqanka Soomaalida ka mid tahay absolutely waa dhaqanka